ururka caafimaadka caruuriyo ciroole dadkuu wada bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij ay idinku talagaleen ardayda jaaliyadda Somaliland ee wax ka barata dalka Hindiya barnaamijkaas oo aan kaga hadli doono cudurka macaanka oo runtii farabaan ku haya dadkeena Soomaaliyeed gaar ahaan dadka inta badan u yimaada dalka Hindiya caafimaadka barnaamijkan waxaa noogu martay ama maanta ku soo martay qaadnay Dr. Daahir Cabdullaahi Daahir oo aan runtii jecelahay inaan ku soo dhaweeyo waad maasantahay walaal Cabdisaaq Daahirciga oo aan ku dhawahay barnaamijka adiga jaaliyadda aad baan idinku mahadcelinayaa Dr. Daahir Cabdullaahi Daahir waa ku mahadsantahay waqtigaaga aan noo soo hurtay ee nala wadaagtay haddii daawadayaal aan idinla wadaago aan iskiin baro Dr. Daahir Cabdullaahi Daahir waxa uu waxbarashadiisii ama heerkiisii koobaad ee waxbarashada uu ku soo qaatay dalka Itoobiya halka uu heerkiisa labaad ee takhasuska uu ku qaatay dalkan aynu joogno ee Hindiya isagoo oo ku takhasusay cudurka diabetiska ama Soomaali ahaan aynu u naqaano cudurka macaanka haddaba daawadayaal haddii aynu barnaamijkeeni guda galno waxaan jeclaan lahaa inaan doctorka weydiiyo oo overview naga siiyo waa maxay doctor cudurka macaanka waxa laga yaabaa dad badan inayna garanayn sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan haddii aan wax ka tagay markaan dadka iskiin barayay in adiguna bal dadka isira bartid oo takhasuskaaga u sheegtid doctor waa maasantahay walaal Cabdisaaq wax badan kama tagin anoo haddaan isku sheego Daahir Cabdullaahi Daahir digriigay koowaad aan ku qaatay dalka Itoobiya kadib waxaan usoo gudbay dalka India oo takhasuskaygii amba shahaada labaad mastertaan ku diyaariyay postgraduate clinical dermatology waxa kaloo walaal aan diyaariyay shahaada labaad oo sidoo master ah oo ku diyaariyay postgraduate diploma clinical research waxaan qaatay shahaadooyin kooban oo ay ka mid tahay abdominal ultrasound marka walaal aad baad maasan tahay waan ku faraxsanahay maxaa dhahdaa in barnaamijka kala qayb galo haddii si guud aan isku dayo su'aasha aan uga jawaabo waa maxay macaanku waxay noqonaysaa marka definitionka laga hadlayo macaanka sonkorta dhiigga ku jirta oo ka badatay intii caadiga ahayd sida caadiga qofka markuu cuntada qaato qofka cuntadiisa caloosha ay gasho kadib loo gudbiyo midhceerada waxa jirta midhceerada L-saliska iyo K-saliska midhceerada ku yaalaan unugyada ku yaala L-salis K-salis la dhahdo waxay soo daayaan dheecaankaas oo u sheegaya ganaca inuu soo daayo dheecaan la yiraahdo insulin dheecaanka insulinta la yiraahdo markay cuntadu gasho liverka amba beerka ee loo gudbinayo dhiigga dheecaanka insulinka la soo daaya wuxuu u ogolaanayaa in unugyada jirku ay qaataan sonkortii si ay u isticmaalaan as energy amba as fuel marka dhibaatada jirta macaanka waxa weeyaan insulintii laga soo deynayay ganaca ayaa waxay noqonaysaa mid aan jirin amba waxay noqonaysaa inuu jirto insulintii la soo deynayay laakiin saliskii aan u hoggaansameen amba unugyada aan u hoggaansaneen insulintii inay qaataan amba labadooda oo la isku daray ay noqonaysaa marka macaanka marka laga hadlayo sida guud wuxuu noqonayaa sonkorta dhiig ku jirta oo ka badatay intii caadiga ahayd oo ku mahadsantahay doctor sida wanaagsan ee noogu sharaxday oo nooga dhaadhicisay cudurka macaanka waxa uu yahay waxaan rajaynayaa daawadayaashuna inay ila fahmi doonaan sida anigu u fahmay haddii aan barnaamijkeeni ku sii socono waxaan kaloo jeclaan lahaa doctor inaan ku weydiiyo imisa nooc ayuu u qaybsamaa cudurkan macaanku waa maxay symptomska ama calaamadihiisa ama waxyaabaha lagu garanayo qofka markii uu asiibo cudurkani ama uu ku dhaco walaal saaqo maasantahay su'aasha haddaan isku dayo imisa nooc macaanku kala baxaa macaanku walaal waxa inta la garanayo caanka ah ee dadku badanaa dhakhaatiirtu ay arkaan ama badanaa la arko saddex qaybood weeyaan ama saddex type 1 type 2 iyo gestational diabetes mellitus saddexdoodu waxay kala duwan yihiin macaanka type 1 ka badanaa waxa lagu arkaa early stage of maxaa dhahdaa young adult amba noqonaysa shalaata jir wuxuu ka yaryahay qofku uu ka yaryahay badanaa lagu arkaa sababta badanaa insulintii destruction immunity cell destruction baa ku dhacay oo difaaca jirka ayaa dib u weeraray maxaa dhahdaa saliskii laga soo deynayay pancreaska isla saliskii qaybta labaad oo type 2 ga la yiraahdo insulintu way jirtaa amba ma nagu filna laakiin waxa jirta insulin resistant
oo uma hoggaansamayaan unugyada jirku inay qaataan insulinta ganaca laga soo daayay oo badanaa ka waxa sababa overweight-ka amba obesity-ga amba dadka cayilka ee burburan qaybta saddexaad oo gestational diabetes la dhahdo badanaa ka waxa la arkaa gabadhu waqtiga ay uurka ku jirto iyadana sababta u badan loo aanaya waxa weeyaan maadaama jirkeeda ku soo biireen dheecaano kuwii hore ka duwan oo ay ka mid tahay balaasantada amba madheerta iyadana waqtigaas la arkaa laakiin kaasi ma sii socdo oo waqti gabadha ay dhashay kadib waa la waayaa macaankaas marka walaal saddexdaas ayaa common ah oo ay u kala baxaan macaanka la yaqaano maanta su'aasha kale haddaan isku dayo astaamaha lagu garto macaanka horta intaan astaamaha ka jawaabin macaanka waxa la nool 400 oo milyan oo qof ayaa lagu qiyaasaa inay la nool yihiin 2015 statistics-ka sameeyeen WHO 400 milyan qof 50% waa dad aan ogeyn xanuunka inay qabaan marka waxa dareemi karaysaa inuu xanuunku yahay silent killer amba xanuun aan la ogaan karin oo hore u soo saareen symptomskiisa amba calaamadihiisa laakiin haddii uu calaamadaha soo saaro xanuunka macaanku oo badanaa waa suddenly oo qofka markuu dhakhtarka yimaado isagoo u yimaaday xanuun kale marka glucose-kiisa la cabiro bay noqotaa mid badan marka badanaa ma hooga dadka boqolkiiba 50 saasa loo leeyahay sababta miska lagu garanayo ama astaamaha lagu garanayo waxa kamid ah qofka oo kaadidiisu badato qofka oo haraad badan dareema qofka oo gaajo badan dareema qofka oo weight loss ku dhaco amba miisaankiisu hoos u dhaco ayaa u badan in lagu garto astaamaha macaanka laakiin badanaa macaanka waxa lagu diagnose gareeyaa oo qofku markuu imaado hospitaalka oo dhakhtarka amba healthcare professionalku ay arkaan ay ka qaadaan investigationada bloodka glucose-ka fastingka iyo plasmaha iyo radamka kadib ayaa la ogaadaa qofka in macaan qabo laakiin symptomska la sheegi karaya waxa weeyaan qofka oo gaajadiisu badato iyo qofka oo kaadidiisu badato iyo qofka oo haraadkiisu aad u bato marka kuwaas aan oran karnaa waa astaamaha uu leeyahay macaanku oo ku mahadsan tahay doctore sida wanaagsan ee noogu sharaxday oo noola wadaagtay waxaan rajaynayaa daawadayaashuna inay sidaas si leeg ay u fahmi doonaan waxaan kaloo aan doctore aad iyo aad u jeclaa inaan ku weydiiyo sababta oo xanuunkan macaanku ugu soo badanayo adduun weynihii sidoo kale dadkeenii Soomaaliyeed maxaa sababay ayaad is oran kartaa absaq oo maasanta wala su'aasha waa su'aal aad important ah oo muhiim ah waa run macaanku aad buu ugu badanayaa adduunkii gaar ahaan dadka Soomaalida ah aad buu ugu badan yahay waqtigan dambe oo maanta oo Hindiya joogno dadka ugu badan ee u yimaada halkan caafimaadka waxa oran karaa 60% daan ka badnayn waa dad laga helo macaanka iyagoo ogeyn marka xanuunka macaanku waa farabaas buu ku hayaa ummadda Soomaalida iyo adduunka dhamaantiiba laakiin point baa meesha yaala oo ah sababtu waa maxay ugu badan yahay macaanku adduunkii gaar ahaan dadka Soomaalida waxa oran karaa anigu laba mid labadaas laba point oo very important ah jiro oo isleeyahay way ka qayb qaadanaysaa in macaanku ugu bato wato koowaad oo ah lack of activity amba dadka oo yareeyay exercise-ka ay sameynayeen oo sida caadiga naqaana xilligan inagu Hindiya joogno inagu ardayda meesha ugu dhawaan tagayna waxaan u ka haysanaa wax raana motors ma raana amba bike ka noqoto amba wax kala noqoto sidaas bay dadka Soomaalida iyo laftigoodu meel walba joogaan amba adduunka oo dhani ay u adkaatay qofku inuu activity sameeyo xitaa normalkii kuwa normalka ahaa qofku inuu meel tago oo meel kale ka tago saas u yaraatay in lack activity iska badaad meeshii la tagay activity kale la sameynayay ka badna kaas sabab u noqonaya kamid tahay waxyaabo kor u qaadaya waa talabaade cuntooyinkan cunaynay oo ka duwanaada kuwii hore oo maanta cuntooyinkan cunna 80% waa redefined maxaa dhahdaa foods weeyaan amba waa cunto chemical lagu daray oo badanaa waxaan ku store garaysanaa talaagadaha oo meel walba waxaan ugu jira cuntooyin aan waqtigoogu ka siyaadayahay sidii hore tusaale ka soo qaaday caanaha oo kale caanaha lo'da oo kale waa caanaha si degdeg ah marka waddanka joogno hore loo karin jiray laakiin waxa arkaysaa caanihii lo'da oo ku jira yani talaagada muddo يعني redefine baa lagu sameeyay chemical baa lagu sameeyay chemical kaas iyo waxaas waxa sabab u noqonaysa in jirkaaga normalki wax ka bedelaan oo imika tusaale ahaan markaan u soo qaadano qofka markuu cuntooyinka cunaa redefine lagu sameeyay hadii cuntada minerals fara badan ka koobnayd oo sodium ka koobnayd oo potassium ka koobnayd minerals ka fara badan ka koobnayd hadii waxaas ay yaraadaan oo kaliya soo hadho glucose amba sugarkii toos ay soo hadho marka la yimaado intestine-kii oo mindhicirkii la yimaado
glucose-ki toos ba jirka loogu daraya kaasoo kor u qaadaya glucose-ka jirka ku jirta amba sonkorta jirka ku jirta marka points muhiim weeyaan in maxaa la dhahdaa lagu darsado refined foods kaasoo aad ugu batay marka ani waxay la tahay in activity-ga yaraaday oo iyo refined foodkaas cuntooyinka la bedelay waqtiga sidii horaan fresh ka wahayn aan isticmaalno inay ka mid tahay sababaha ugu waaweyn ee sababaya in macaanka kor u kaco wadankeena دكتور daahir cabdilaahi daahir runtii aad iyo aad baad u mahadsan tahay sida wanaagsan ee aad noogu kala dhigdhigtay oo aniga iyo daawadayaashaba aad noola wadaagtay waxaan rajaynayaa inay daawadayaashuna ay fahmi doonaan ay si wanaagsan u fahmi doonaan haddii aan barnaamijkeenu u sii gudagalno aan sii soconno دكتور waxaan rabay oo kale inaan ku weydiiyo waa maxay cawaaqib xumada uu leeyahay cudurkan macaanku ma leeyahay wax dawo ah waa maasanta walaalo Cabdisaaq aad bay su'aashaas u fiican tahay cawaaqib xumada uu leeyahay macaanka haddii la control waayo oo laga dhig waayo glucose-ka normalkii caadiga ahayd dhibaatooyin badan buu la imanayaa oo ay ka mid tahay retinopathy, nephropathy, neuropathy oo noqonaysa qofka oo indhaha uu tiro oo dadka macaanka maanta qaba 15% waa dad oo indhaha tiray oo retinopathy ku sababay waxa kale oo sababaya qofku inuu nerveska lugaha iyo gacmaha ay dhaawacmaan damage soo gaadhay kadib qofkii oo amputation amba lugtii in la jaro oo maanta lagu qiyaasay dadka macaanka qaba 20% lugaha la jaro waxa kale oo sababaya qofka nephropathy inuu kelida shaqadeedii joojiyo oo marka laga imaado acute renal failure-ka xanuunada chronic ah ee waqtiga dheer jira macaanku waa wuxuu ka yahay kuwa ugu waaweyn ee sababa qofka inuu kaliyaha fadhiisiyo marka dhibaatooyin kale uu leeyahay oo laba jeer qofka caadiga wuxuu ka riski badan yahay ka khatar badan qofka macaanka qaba inuu u dhinto wadna xanuun amba wax la dhahdo cardiovascular disease-ka waxa kale qofku khatar u yahay inuu stroke oo falig waxaan naqaanaha uu ku dhaco oo khatar buu yahay marka cawaaqib xumada walaal uu leeyahay macaanku aad bay u fara badan tahay waa sababta lagu koob waayay xanuun kaliyaata ee lagu sheegay macaanku yahay xanuuno fara badan isku yimaaday laakiinse intaan waxaas oo dhan gaarin su'aashii imanaysa weydiinaysa ahayd dawo ma leeyahay haddii aan ku iraado xanuunka macaanku dawo specific oo taas oo lagu dawoobaa jirta wali ma jirto laakiinse xanuunka macaanka waa xanuun la noolaan karayo boqolkiiba 8 ama boqolkiiba 9 waa xanuun la noolaan karayo oo dhibaato jirka keenay waliba dadkeena Soomaalida aad baan jeclaan lahaa inay la gartaan points-kan aan soo horeysiinay sida xanuunka macaanka dawo loogu helo amba xanuunka macaanka lagu controlo xanuunka macaanka marka laga hadlayo dawooyinkiisa waxa lagu horeysiiyaa exercise waxa lagu xigsiyaa diet waxa lagu sii xigsiyaa medication macnaheedu waxa weeyaan say u kala horeeyaan bay u kala muhiimsan yihiin saddexdooda haddii mid la waayo macnaheedu waxa weeyaan ka kale ma shaqeynaya haddii kaliya la isticmaalo haddii exercise weyno oo exercise samee weyno medication-ku amba dawooyinkan qaadanayna insulin ha noqoto amba ha noqoto dawaafka laga qaadanayo waxay noo tarayaan aad bay u yaraanaysaa marka saddexdaas oo la israaciyay ayaa yani noqonaysa inaan ku maintenance gareyno xanuunka macaanka waliba dadkeen waxaan moodeen aad uga adag yihiin exercise-ka oo macno weyn u fadhiyaanay jirin markaan ka sheekeynay insulinta shaqada ay qabato waxay ahayd qofka in marka ganaca laga soo daayo insulinta ay timaado salka amba unuga u baahan inuu sonkorta qaato dhiiga sonkorta ku jirta unuga uu qaato insulinta kaliya waxay qabanaysaa waxa weeyaan inay u noqoto meesha furahaas markuu furo kadib ay sonkorti gasho unugii insulinta shaqadaasi qabanaysaa باورka uu leeyahay amba exercise-ku awoodda uu leeyahay wuxuu qabanayaa qofku markuu cararo amba exercise sameeyo muscle-iska ama muruqyada jirka ku jira waxay u haraadayaan say action-kan u sameeyaan inay sonkor helaan sonkorta ay helayaan waxay u noqonaysaa sensitive insulinta inay qaadato oo waxay u dhib yaraanaysaa marka in muscle-iska isticmaalaan sonkortii marka exercise-ku waxa la oran karaa exercise as a medicine amba exercise-ku waa medicine caadiya diet-ka qofka cuntadiisa controla oo dadkeena inta u badan carbohydrate bay isticmaalaan oo bariis iyo pasta iyo loo badan yahay laakiin waxa fiican cuntooyinka natural-ka ah oo maxaa dhahdaa sida vegetables-ka fruit-ka qayb kamid ah in qofku isticmaalo oo uu badiyo cuntadiisa aad u controlo oo sababta ugu badan wax weeyaan marka qofku markuu wax carbohydrate cuno
qofka cuntadii qaato waxay u dhib yar tahay jirka inuu markaba sonkor u bedelo carbohydrate-kii marka wax laga yaabaa isagoo qofka cunto qaatay 30 mir ama 20 mir kadib in sonkortiisa kacdo laakiin qofka cuntooyinka borotiinka ku badan yahay markuu qaato ama starchka ku badan yahay cuntooyinkaas waxa jirka ku qaadanaysaa in muddo uu bedelo sonkor inta uu bedelay waxa suurtagal ah qofkii exercise uu sameeyay ama jimicsi ha noqoto ama normal activity uu sameeyay in lagu gubo sonkorta jirka soo galaysay kaasoo aad u yaraanaysa in sonkortu kor u kacdo marka dadkeena aad waxaan kula talin lahaa marka laga yimaado medicationka in exercise ku yahay waxa ugu fiican ee laga hortagi karayo xanuunka macaanka ama lagu maintenance garan karo talabaad oo ah qofka oo dietkiisa isticmaala oo qofka oo diet sameeyo oo cuntooyinkiisa control wuxuu cunayo ta ugu dambayso noqonaysa qofka oo si regular u qaata medicationkiisa oo aan iloobin oo mar walba sameeya inuu maxaa dhada dhaqaatiirta la xiriiro si loo eego macaankiisa oo dadka macaanka qaybta labaad qaba badanaa waxay ku weydiinayaan qof waxa arkaysa macaanka qaybta labaad qaba ama type 2ga oo in muddo xanuunka la noolaa oo markii hore medication afka ka qaadanayay oo markii dambe isku bedelay qofkii inuu insulin qaato oo ku imanay ku weydiinaya waa maxay sababtan uu qaatay insulinta uu qaatay markii hore uu qaadanayay maxaa dhahdaa marka qofkaas oo kale pancreas shaqadii aan ku ogeynahay insulinta soo saaro qaybta labaad macaanka laakiin ugu filan inay ku caawinay marka dambe wax laga yaabo in totally istaago qofku markuu muddo badan la noolaado macaankii marka qofku inuu ku xidhnaado health workers ka amba maxaa dhahdaa dadka health professional ka ama dhaqaatiirtiisa oo si uu la socdo xaaladiisa caafimaad guud marka intaas un bay noqonaysaa in dawadiisa ay la tahay in lagu badbaadiyo qofka in communication-ka laga ilaaliyo doctor aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii sida wanaagsan ee aad noola wadaagtay anaga iyo daawadayaasha kaleba waxaan rajaynayaa inay ayaguna si fiican u fahmi doonaan aniga oo ku jira guntii iyo gabagabadii barnaamijka waxaan jeclaystay su'aashii u dambeysay ee ah waa maxay tala ahaan ka doctor Daahir Cabdilaahi Daahir waxaan nagula talin lahayd ama kula talin lahayd dadkaaga Soomaaliyeed ee cudurkaani hayo ama kuwa kale oo ka cabsi qaba maxaa kula talin lahayd doctor وما سنتي عبد الساق ولا تلاهان waxay taladu waxay noqonaysaa Soomaalida dadka Soomaalida ay daawanaya talada ugu weyn aansiinaya waxweeyaan in qofka macaanka la nool horta ogaado exercise ku inuu yahay waxa koowaad uu ku daweyn karo macaankiisa ama kula noolaan karo macaankiisa oo sida WHO ay recommend gareysay in 30 mirir maalintii qofku uu exercise sameyn karo exercise sameynaya noqoto socod in qofku exercise gurigiisa dhex joogo sameyn karo xitaa exercise-ka oo aanay u baahnayn qofku inuu dibadda u baxo oo meel kala tago laakiin exercise fudud oo 30 mirir maalintii uu sameynaya ama jimicsi sameynaya inuu sameeyo 30 mirir maalintii waa aad buu fiican tahay kula noolaan karo macaanka waxa kale oo walaal very important in maxaa intaan horta ka tagin jimicsigu باورك أم باود ولا يهاي وحكميدا ما عنده research يسميين جامعة كوبنهاجن يونيفرسيتي ذاك دنمارك واحد صوص هارين إن قفك جميسية سمية مسألة مش هو بدون استعمال يا مدام مسألة كتاعي إن قفك DNA ديسا لما هذا DNA كورك أو قفك بارد كوكواتا لكن الريموت دالينكا إن قفك ممكن exercise سمية سالس كسبب حيايين قار متباليس فيعان لكن هذه قفك exercise أنا سمينه سوى حلاقي معانا نقابل أما معانا نقادم لكن ممريجا سمانيا سالس كاسي أيهين قار bad habit وقفك exercise أنا سمينه مكا ماشي ودو سمينه ممريجا سمينه ساعتها سبم سالسكا مكا حاول غيا وقفك دو exercise سمين ويسوي حتى معان بقابين إن generation كدام بقى إنه صابون لقنا حنوذا كود عدونا إنه نوع صابون لقنا صابته تها exercise كيار أنا سمينه مكا recommendation كواد وحنا قلنا يا قفكو إنه exercise سمايا طلبات مش طالع حويان قفكو إن diet كأنه كنترولو أو عنتوين كيسة عنتوين كيسة كنترولو weight كيسة سوق قفك سوق كنترولو أو ما كبري ماس إنك جالس كما كلاجا هذا يو dadka overweight ka iyo dadka obesity ga oo dadka ugu badan macaanka type 2 develop garaya marka diet-kuna waa very important medication qofku inuu si toos ah u qaato oo aanu skip sameyn amba aanu ka boodsin maxaa raahdaa medication ka marka waxa very important saddexdaas oo isku daray qofku inuu ku control karo macaanka marka dadka Soomaaliyeed waxa kula talin lahaa number 1 exercise qofka ka dhigto number 2 diet ka dhigo saddexaad medication ka soo galo marka dadkina waxa moodaa Soomaaliyeed soo horeysanayaan medication ka laakiin waxa fiican labada ka horeysa qofku soo horeysiyo hadhow waxa laga yaabaa inuu ka maarmi karayo medication soo hore u sheegnay
دكتور داهر عبد الله داهر أدي أدبض ومحسن تاي سيدا وناكسن يتلوينك وناكسن أدنى سيسي رونهانتي أنيقو كميد بان هاي كل بدتك سومالية تلada سيسي waxaan rajeynayaa daawadayaashii aniguba inaan ku dhaqmi doono taladaadana aan qaadan doono aad iyo aad baan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga wanaagsan ee qaaliga aad noo soo hurtay adiga oo waliba mashquulsan oo aanu kaaga soo codsanay adiga oo shaqadaada ku jira oo walibana aan filayo inaad shaqada ku qorneyd xilliyada soo socda ku qoran tahay waxaan ogeysiinayaa daawadayaasha sidoo kale in aanu soo wadno barnaamijyo aad iyo aad u xiiso gelin doona sidoo kale ay ka faa'iidi doonaan oo aan ka jaaliyad ahaan ardayda dalka Hindiya wax ka barata ee cilmiga u saaxiibka ah ee takhasuska wata ay la faa'iideyn doonaan dadkooda Soomaaliyeed inaguna aan xaggan barnaamijka kala socon doontaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin idinkuna sida wanaagsan ee noo daawateen wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh